xaaladda maanta. Hugu qofka waxba uma taro haddii aanu huwanayn hulga anshaxa iyo hufnaanta. Aynu wax yar soo hadal qaadno xaaladda maanta lagu sugan yahay iyo sababaha. Muddo dheer ayaa noloshu kala qalnayd oo dadkii wakhtiyada qaarkood noolaa ay dhex fadhiyeen nolol deeq iyo mahad alle ah oo lagu naaloodo. Noloshaasi dadka fudayd kuma dhaafin. Waxaa la dhex joogay nolol mudbaxday oo dhiibsatay xididdo dhaadheer. Waxaa lagu sugnaa nolol dhanka allana ka dhowran, dhanka ummadda ku noolna ka dhisan, dadkii ku dhaqnaa xasiliyeen oo gacanta ku hayaan. Labada wakhti ee noloshu leedahay, ta la mahadiyo ee aan muraadada meel fog laga doonin ayaa la dhex joogay. Waxaa jirtay aqoon iyo abbaar nolosha loogu abtiriyo iyo isku kalsooni lagu dhex joogo. Nimcada waa lagu mahad celiyaa, dhibaatooyinka waa lagu sabra, sabirkana waxaa lagaga dhur sugaata alle. Haddii aanay noloshu labadaas wakhti noqon oo mar walba mahad iyo barwaaqo ku sugnaato, waxaa lumaya dhandhankii iyo macaansigii nimcada. Haddii aad abaar iyo oodo lullul ku waartana, in mashkiladta hore ka soo horjeedaa dhacdo ayaa la filan karaa. Bani'aadanku waa daciif oo dhibta wakhti dheer ma xamilo. Nimcadu dhaliilaheeda ayay leedahay oo waxa dhacda in la kibro oo xadka laga baxo oo xaalado aan habboonayn lagaga jawaabo oo qofku wax ismoodo sida marar badan dhacday. Tusaale ahaan, ciir baa na dayn weydee, gaajoy na daba carar, ama aadame ka weynaanee, ma ilaah yar baan nahay. Waxaa dhici karta in fusuq iyo fasahaad dhaco, xadka laga baxo oo ilaahay iyo xeerka islaamkaba ooda laga rogto. Waa sidaas si ka duwan haddii abaaro baani dhacaan, sida kuwii aynu sheegnay ee caanka ahaa: baaha, gaatama, adhigaba, maadhgembiya, jiitama, jaahweyn, haariya, hawaara, hargacuna iyo dabadheer. Waxaa dhici karta in dadku bahaloobo, tuugada iyo dhacu bato oo ay dadku xayada iyo xishoodka tuuraan sida waagii xaaraama cune. Waxaa dhici karta in adkaarta ilaahay iyo waajibaadkii diiniga ah la ilaabo oo xalaal iyo xaaraankii uu noqdaba aan loo aabayeelin. Waxa aan hordhacan uga socdaa baraarujin iyo weydiin ah, labada wakhti kee ayaynu hadda ku sugannahay? Wakhtigan waxaa la odhan karaa labada wakhti ee aynu sheegnay, waxa aynu jirnaa ka dambe. Waxa aan u jeedaa wakhtigii faramadhnaanta. Bal horta aan xuso maanta ama xilligan lama wada faramadhna, laakiin inta faraha wax ku haysaa ma muuqato, waayo 90% waa la faro madhan yahay. Mar haddii ay sidaas tahay, inta yar ee wax haysa waxba u dhigmi maayaan, oo malaha ma jirto daqiiqad aan la hor taagnayn oo aan la lahayn wax keen. Aynu faaqidno sababaha arrinkaas ka dambeeya. Waxaa inagu furan albaabkii hunguriga. Sideedaba hungurigu waa cadowga anshaxa iyo asluubta, tacabka iyo waxqabadka. Miyirka iyo miisaanka, xayada iyo xishoodka, runta iyo raaligelinta dareenka, samaha iyo sabirka, dadaalka iyo daacadnimada, diinta iyo caqiidada. Waxaa ina luraya hungurigii quraacda, qadada, cashada, qaadka, sigaarka, khamriga, tuugada, dhaca iyo boobka. Waxaa ina luraya hungurigii macsida iyo maratuurka, hungurigii marmaroorka iyo munaafaqnimada, hungurigii jiifka iyo hurdada, hungurigii beenta iyo balwadda, hungurigii fidnada iyo faramadhnaanta, hungurigii baryada iyo keenta iyo hungurigii fadhiga iyo fooxaaliga. Waxa aynu ku sugannahay wakhtigii qoriga iyo qacda, foolxumada iyo fawaaxishka, qoloqolada iyo qoqobka, quusta iyo qaylada, isqaawinta iyo qooqa, kudaafadda iyo uuskulaalka. Waa wakhtigii hunguriga bacaha iyo boodhka. Wakhti kasta oo jiray, horayso iyo dambayso, waa kii ugu macnaha darnaa. Intaas oo dhammi waxa ay ka dhalatay baahida xaddhaafka ah ee boggolaab uga badatay tacabkeenna sharka iyo shidaadda ah. Intaas oo dhammi waxa ay naafaysay dadnimadeennii, karaamadeenii, tacabkeennii iyo tiirarkii nolosheenna. Qofka hugu wax ma taro haddii aanu huwanayn huga anshaxa iyo hufnaanta. Looma noolaado aad wax uun liqdid, waxaa loo noolaadaa aad wax soo kordhisid. Naftu inay maqnaatiyo inay mahad ku nooshahay, labadaa mid weeyaan. Intaas oo dhan waxa u sabab ah qawadka intii Ilaahay inoo qoray ee xalaasha iyo buuniga ahayd. Intaas oo dhan waxa u sabab ah marin habowga iyo isku halaynta reer galbeedka. Intaas oo dhan waxa u sabab ah saluugga nafteenna iyo quudhsiga quwadda inagu jirta. Ayaan darooyinka ina dhex yaal ee aynu indhaha ka lalinaynaa waa kuwa isku keen biirsanaya oo inaga uun ina sugaya. Ayaan darooyinka ina dhex yaalaa waa kuwa aynaan ifka wax kaga qaban karin, aakhirana la tegi karin. Waxaa laga yaabaa in iyada oo sidaas ah suurka la afuufo, waayo waxaa si cad u soo shaacbaxay amaaradihii hordhaca u ahaa qiyaamaha. Haddii adiga oo aan warbahaynin ay dushaada ka yeedho, sidaas maan yeelo meel kuu buuxin mayso. Belo gafuur la qabto ayay leedahay ee daba la qabto malaha. Ina ragow. Imikaba laguu sheeg calaamadaha qiyaamaha waxaa kow ka ah marka dadku macnabeelo ee karaamada lumiyo. Taasi waa astaantii ummadihii hore lagu rogi jiray. Cimrigii nolosha wax badani kama hadhin marka laga dabqaato calaamaadka muuqda iyo cimri degdega socda. Astaamihii la inagu yidhi ku garta iyo macnabeelka nolosha ka jira waa amaarado ay indhaheennu hayaan.
waxa aynu ka dab qaadanaynaa shuruudihii qurumihii hore lagu rogi jiray. Haddii warka la sii tixraaco, waxaa la yidhi, nin aan waxa jooga garani, waxa soo socda ma garto. Quruun kasta waxaa la rogi jiray marka ay xadka ka baxdo ee ay weydo indho ay ku aragto iyo caqli ay ku garato awaalaha jira. Quruun walba waxaa la rogi jiray marka ay ilaah kale oo baadil ah samaystaan ama ay dardaarankii badbaadada ka jeestaan. Waxaa la rogi jiray marka xumuhu hafiyo samaha iyo wanaagga. Jidkii dheeraa ee soo taxnaa ee mar walba samuhu gacan sarreeyey ayaa ta aynu maanta ku sugannahay ka dambaysay. Haddii nolosha majaraheedu muddo kale sii socdo, waxa aynu filaynaa in arrintu ka sii dari doonto. Haddii aanay waanwaani imaan, geeddi-socodku waxa uu ina geynayaa meel fig la yidhaahdo oo ay noloshu marka ay faraha ka baxdo dul istaagto. Haddii innaga oo xambaarsan ayaan darooyinka uu hungurigu hogaaminayo uu figtaas dusheeda gabal inoogu dhaco, saacaddaas waxa aynu ku qasbannahay in aynu laba kala dooranno, in aynu raacno raadkeennii aynu sannadaha dheer ku foognayn ee mar walba aynu xadka kaga sii baxaynay waa jid dheer. Iyo in aynu figta xumaha dib u soo raacno, wasakhdii ina fuushay iska daahirinno, jidkii ambadkana dib uga soo noqonno. Dib u noqoshadaasi ma fududa oo xumihii ayaynu halkii ugu sarraysay ka gaadhnay. Laakiin ujeeddadu waa in aynu waddo daahir ah cagta saarno ilaa figta ilaa saacadda qiyaamaha. Waxaa taa inoo garab taalla in aynu innaga oo xambaarsan ambadkii 100 sannadood ku dhowaa figta ka daadanno oo aynu qiyaamaha iyo naarta ku dhacno. Ta aantu saddexaad lahayn ee maanta ina hor taallaa waa labadaas mid. Ummad yahay, waxa aad rumaysataa in maanta labada aad kala dooranaysaa yihiin in aad jidkii ambadka ee figta xumaha ku saaray suurka la afuufayo ku sugto, iyo in aad waddadaas dheer dib u soo raacdo, kadibna aad mar labaad cagta saarto ilaa figta oo aad halkaa qiyaamaha ku sugto adiga oo daahir ah. Waxa aan ku talin lahaa in ragannimo la isku dayo oo jidkaa naarta laga soo noqdo, oo dib la isku daahiriyo ka hor qiyaamaha oo halkii samaha kuugu dambaysay aad nafta kula soo eerato inta aan suurku kugu yeedhin. Jidkaas dheer ee xumuhu yaanu ku siin talo odhanaysa, jarka ka bood, rajo iyo awood aad dib ugu noqotaa ma jirte. Ku dhacii xumaha ku beddel ku dhaca badbaadada.